Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kale waxaan kaga hadli doonaa cudurka qawidka waxyaabaha sababa iyo qaababka daweyntiisa. Qawidka waa caafimaad ahaan cudur loo yaqaano tinea versicolor. Waa cudur ku dhaco maqaarka waxaana sababa nooc ka mid ah fangaska. Cudurkan waxa uu ku badan yahay dadka waaweyn, mana ahan cudur daran oo dhibaato caafimaad keeni kara. Qawidka waxa keenaa cuncun, haddii la xoqana waxa uu isku beddelaa dhaawac, dabadeedna fangayga ayaa gaara jirka waxaana uu sababaa cudurro kale oo loo yaqaano pityriasis versicolor. Haddaba qawidka maxaa keeni karaa? Su-aalahaas ayaan ka jawaabi doonaa. Maqaarka jirkaagu waa nooca dufanka leh. Waxaad ku nooshahay dhulalka kulaylaha, waxaad tahay qof dhidid badan, difaaca jirkaaga ayaa aad u hooseeya. Calaamadahana waxaa ka mid ah baraha waxay noqon karaan kuwo caddaan ah, pink ah, guduud ah ama kafay ah. Waxay ka khafiifsanaan karaan ama ka madoobaanaan karaan maqaarka ku hareeraysan. Haddaba barahan waxay kasoo muuqan karaan qayb kasta oo jirka ka mid ah, laakiin waxa ay caan ku yihiin qoorta, xabadka iyo dhabarka. Baaritaanka waxaa jira cudurro ay qawidka isku ekaan karaan, marka waa in la baaraa. Hababka baaritaanka waxaa ka mid ah in qolof laga qaado jirka dabadeedna la baaro. Daweynta qawidka waxa uu ka koobnaan karaa kareem, boomaato iyo shaambooyin dila fangayga oo maqaarka la mariyo. Sidoo kale waxaa jira kaniiniyaal loo qaato haddii uu qawidka aad u daran yahay, si loo daweeyo isla markaana aad markaasi la isugu dayo in qofka uu ka daawoobo. Haddaba maareynta qawidka waa inaad ka dheeraata waxyaabaha la mariyo jirka dufanka leh. Iska ilaali inaad qoraxda isku dhigto. Ha xiran dhar aad kugu dhagan. Xiro dhar ay hawada ka gudbayso sida dharka suufka ka samaysan si ay u yareeyaan dhididka. Waan sii wadeynaa qawidka iyo asbaabta ugu badan ee dadka inta badan uu u haleelo. Haddaba cudurkan qawidka oo Soomaalidu mararka qaar ay u taqaano meelaha qaar baagta, dad badanna uu aad markaasi u saameeyo. Muddooyinka ugu dambeeyana daweyntiisu ay aad u soo badanayso, inkastoo xilliyadii hore ay aad u adkeyd in la helo oo dadku ay isticmaali jireen waxyaabo herbal ama dabiici ah. Qawidka maqaarka waa cudur uu keeno fangayga oo si dabiici ah u degan maqaarka bini'aadamka. Cudurkan waxa uu ka muuqdaa maqaarka isagoo saameeya ama sameynaya dhibco kala midab ah, mararka qaar caddaan, dhibco madow ama huruud ah, kuwa uu inta badan ka soo baxo xabadka, dhabarka, gacmaha sare, qoorta iyo garbaha. Inkasta oo uu khatar weyn ku ahayn caafimaadka guud, wuxuu keeni karaa muuqaal iyo fool xumo iyo sidoo kale xishood darro. Sidoo kale stress iyo walbahaar ayay dadku ka dhaxlaan. Sababaha qawidka uu inta badan oo dadku ugu badnaado waxaa ka mid ah ama uu ku yimaado cimilada kulul iyo qoyaanka badan. Fangayga ku bata jawiga kulul oo dhidid badan keena ayaa sababi kara in maqaarka cudurkan uu haleelo. Dufanka maqaarka dadka leh saliidda badan oily skin-ka loo yaqaano aad ayay ugu nugul yihiin inuu caabuqan haleelo. Hoos u dhaca difaaca jirka ayaa ka mid ah waxyaabaha sababa. Dadka difaacoodu hooseeyo, tusaale ahaan dadka sonkorowga qaba, dawooyinka difaaca hoos u dhiga qaata waxa ay si fudud u qaadan karaan dawooyin tiro badan, isla markaana ay ka fogaan karaan in faytamiinada iyo nafaqada jirka hoos ay uga dhacdo. Hormoonnada iyo da'da qaangaarka. Dhalinyarada iyo dadka qaangaarka ayaa inta badan lagu arkaa in uu haleelo caabuqan. Isticmaalka isqurxinta iyo kareemada kala duwan waxay xannibaan daldaloolada, waxay kordhiyaan dufanka ama saliidda jirka. Fangaygana waa uu ku tarmaa. Siyaabaha qawidka loo kala qaado. Qawidka ma aha cudur si fudud qof ugu gudbo sida hargabka, laakiin waxaa jira habab uu ku faafi karo ama uu ku bato oo ay ka mid yihiin agabka isqurxinta, buraashka isqurxinta la isticmaalo, kareemada, lipstick-ga iyo qaababka kale ee la wada isticmaalo ayaa fursad u siin kara dadka in caabuqan uu ku dhaco bakteeriyadan si hufan ugu faafo. Haween badan oo agabka isqurxinta wada isticmaala ayaa mararka qaarkood la sheegaa in ay kala qaadaan caabuqan loo yaqaano qawidka. Saabuunta iyo shanlada la wada isticmaalo ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee laga qaado qawidka. In la wada isticmaalo saabuunta, towel-ka, shandada ama markaasi dharka ayaa kordhiya dhididka. Taasina waxa ay keentaa in dadku ay isu gudbiyaan infekshanada maqaarka. Inkastoo fangayga qawidka badanaa qofkiisa
kasoo kaco haddana nadaafad darro iyo alaabta la wada isticmaalayo waxay kordhiyaan khatarta in uu qofka ku bato. Goobaha qoyaanka badan, gaar ahaan barkadaha dabaasha, meelaha jimicsiga, dharka dhididka ku qoyan oo muddo badan la xidho waxay abuuraan in fangaiga uu ku faafo qaybo ka mid ah jirka. Agabka la isku qurxiyo iyo cudurrada maqaarka. Waxaa jira cudurro markaasi caddeymo muujinaya in agabka la isku qurxiyo oo aan si sax ah loo nadiifin ay keeni karaan finan badan, fungi tiro badan iyo qawidka iyo cudurro kale oo fungi ah. Caabuqan iyo finanka maqaarka xasaasiyadda ka dhaliya ayaa ka mid ah waxyaabaha laga qaado agabka dumarku ay isku qurxiyaan. Mararka qaarna muddooyinka ugu dambeeyay haween badan ayaa aad uga cabanaya in qawidka jirkooda uu kasoo baxaya, taasina ay sabab u tahay agabka dumarka ay isku isticmaalaan muddo dheer la isticmaalayo iyadoo aan markaasi la iska eegin saameyntiisa. Sida looga hortago waa nadaafad joogto ah, si joogto ah ugu maydh ugu qabayso biyo iyo saabuun nadiif ah. Iska ilaali inaad muddo dheer xirato dharka dhididka leh. Isticmaal alaabta shakhsi ahaaneed. Ha wada isticmaalin saabuunta, tawalka, shanlada, alaabta la isku qurxiyey ee dadka kale. Ha la isticmaalin. Haweenka ka taxadaraan buraashka, foundationka iyo kareemada la wada isticmaalo. Xulashada kareemada iyo agabka isqurxinta. Ka fogow agabka aadka u culus ee daldaloolada keena. Dooro agab tayo leh, kuwa oo keeni kara saliid badan. Daryeelka caafimaadka guud. La soco sonkorowga ama xanuun kasta oo difaaca hoos u dhigi kara. Iska ilaali jawiga dhididka iyo meelaha dabaasha. Haddii aad horey u lahayd qawid, soo noqnoqda. Daweynta hore. Haddii calaamadaha qawidka ay u muuqdaan dhibco kala midab ah, la xiriir dhakhtar ama isticmaal antifungal creams, saabuunta ee dhakhaatiirtu ay kula taliyaan. Qawidka waa cudurka maqaarka ku dhaco oo fungiga keeno. Wuxuu inta badan ku bataa mararka maqaarka dhididka badan, saliidda tirada badan ee jirka, iyo daryeel nadaafadeed la'aaneed oo ka mid ah waxyaabaha dadka u keeno. Inkastoo aan si fudud qof lagu gudbin ama la isugu gudbin karin, haddana wadaagista agabka la isku qurxiyo iyo sidoo kale saabuunada ayaa keeni kara in jirka uu gaaro. Ka hortaggiisu wuxuu ku jiraa nadaafad joogto ah, in qofka uu ka fogaado goobaha uu ka qaadi karo, in sidoo kale daryeel caafimadeed oo guud qofka uu sameeyo uu ku dadaalo. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa dadka in ay iyagu intooda badan isku dhex milmin goobaha dadku ay ku badan yihiin, meelaha markaasi dadku ay isugu yimaadaan. Dadka kubadda cagta ciyaara oo dhalintu ay u badan tahay ayaa iyaguna la sheegaa in uu aad ugu badan yahay qawidka. Deetana waxaa sabab ugu ah in qaar ka mid ah dhalinyarada ciyaartooyda ama kubadda cagta xiiseysa in iyagu uu ku dhex faafayo qawidka, isla markaana dhididka iyo sidoo kale isla isticmaalka funaanadaha iyo dharka ay keeni karaan. Sidoo kalena kubadda markay ciyaarayaan waxaa dhacda in iyagu ay isdhex galaan, aad isku dhex galaan. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta. Fadlan like garee, la wadaag asxaabtaada, qaybta commentiga aragtidaada iyo fikirkaaga inoogu reeb.